Soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa taariikhda dalka Belarus. Aynu gudagalno muuqaalkeena. Belarus waa dal ku yaala waqooyiga Yurub, kana mid ahaan jiray Midowgii Sofiyeeti. Waxa uu xuduud la leeyahay dalalka Russia, Poland, Ukraine, Lithuania iyo Latvia. Caasimadda waddanku waa Minsk. Dalka waxaa ku nool qiyaastii 9,500,000 oo qof. Dhulkiisuna inta badan waa kaymo iyo harooyin iyo bannaano waaweyn. Taariikh ahaan, Belarus waxay marar badan u dhaxaysay loolanka Ruushka iyo Poland. Kadib burburkii Midowgii Sofiyeeti ayay madax-bannaani qaadatay. Dadka Belarus waxay aad ugu dhow yihiin Ruushka dhinaca luqadda iyo dhaqanka. Badankoodna waa Masiixiyiin Orthodox ah. Belarus waxaa si weyn loogu yaqaanaa nadaafadda magaalooyinka, ammaanka, iyo quruxda dabiiciga ah. Dumarka Belarus ayaa caan ku ah quruxda iyo daryeelka ay naftooda daryeelayaan, halka dadka guud ahaan lagu tilmaamo kuwo deggan oo saaxiibtinimo leh. Dalkan booqashadiisu way fududahay, waxaana dad badan geli karaan muddo 30 maalmood ah iyaga oo aan fiiso u baahnayn. Haddii qofku doonayo inuu halkaas ka shaqeeyo ama degganaado muddo dheer, wuxuu u baahan yahay sharci degganaansho ama shaqo rasmi ah inuu waddanka gudihiisa uu ka qabto. Nolosha Belarus guud ahaan waa ammaan, balse sharciyadu waa ay adag yihiin. Lama oggola qashin tuurista ama cabista khamriga ama sigaarka meelaha dadweynuhu ay iskugu yimaadaan. Belarus sidoo kale waa dalka keliya ee Yurub weli si sharci ah u isticmaala ciqaabta dilka. Cimiladu aad bay u qabowdahay xilliga jiilaalka, gaar ahaan bisha Janaayo oo heerkulku mararka qaar waxa uu ka hooseeyaa -20°. Sidaas darteed, dadka badankood waxay booqdaan xilliyada guga iyo dayrta. Dhaqaalaha dalka wuxuu ku tiirsan yahay warshadaha, dalxiiska, iyo beeraha. Belarus waa dal si weyn u soo saara caanaha iyo baradhada. Dadka halkaas jooga waxay cunaan barandho badan, waxaana jira 300 oo nooc oo cunto ah oo laga sameeyo barandhada oo keliya. Mushaharka dalka Belarus celcelis ahaan waxa uu u dhexeeyaa $500 ilaa $600 bishii. Rag badan oo ku nool dalka waa ay ka tagaan oo dalal kale ayaa ay tagaan si ay u helaan shaqo tan dhaanta, taasoo sababtay in dumarku ay ka bataan ragga gudaha dalka. Gabagabadii, Belarus waa dal qurux badan oo leh natural dabiici ah, magaalooyin nadiif ah, iyo dad deggan. Inkasta oo cimiladu ay qabow tahay, sidoo kale sharciyadu way adag yihiin, haddana waa meel xiiso leh oo dalxiis iyo nololba leh. Muuqaalkeena maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa.